هدنة فلاتسيون يا شدادين الأحمر مركل إسباق شدادين تو حاضر وحكلا أي سمين يعني يقول طبننا ولا أمرهم ومعلن يكبير مان يونايتد اسك الدفاع ذي كان بدي سي أرسنال هرجيدا كنت كتمر يا كعلاشتي جيد قلالنا كحدي هذا اللي مكو واحد سمين يا وطبنن إسباق لمزي جابرييل يا كان سلاي جول كي فوريتان كي ودليي برونو فرنانديز كورنتيان مارتينو ديغاد وسي ريكورد كبدبادين جول هيا مان يونايتد kulankii wareegga saddexaad ee FA Cup ee Emirates Stadium Gabriel Martinelli ayaa u muuqday inuu hoggaanka u dhiibay Arsenal qaybta hore balse waxa ka diiday calan wadaha maadaama loo arkayo inuu jiray garab dhaaf kulanka oo ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo la raacayo nidaamka sharciga dhammaan kulamada wareegga saddexaad ee FA Cup ma jiro wax faar loo isticmaalayo taasoo keentay in goolkaasi la diido Gabriel Jesus ayaa ciyaarta bareelo looga saaray qaybtii hore isagoo dhaawac ka soo gaaray jilibka waxa lagu bedelay Sterling oo isna ka soo kabsaday dhaawac muddo sariirta meher ugu xidhnaa dhibaatada ugu badan ee Man United waxay timi markii Diego Dalot uu casaan qaatay ilbiriqsiya ka hor goolkii barbaraha ee Gabriel kadib markii loo taagay jaalay labaad Harry Maguire ayaa si xun loogu ciqaabay qalad uu ku galay Kai Havertz oo ku jiray xerada ganaaxa isna kabtan saaqidku habeenadan oo kale ma kala garanayo waxiligi laga adeeganayay iyo xilligii kale ninku xayndaabku ku jira laakiin goolaha Alti Bayandir ninkaasi wadna garaacna wuxuu ku sii riday ninkii Andero Onana hadda gabal baasi ii dhacay yaa Alti Bayander wax kale weeye ayaa u soo gurmaday difaaca England isagoo si fiican u badbaadiyay rikoodha uu soo tuuray Odegaard oo yiri Odegaard tire og la yalaadaad keentaan ma jirto guud ahaan 90 daqiiqo ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaaday barbaro hal iyo hal sida sharciga maadaama kulamada hal lug yihiin waxa loo baaday waqti dheeraad ah si loo kala saaro labada kooxood laakiin midani waxay u muuqatay in Arsenal iyadu haysato libinta inteeda badan balse way noqon weyday oo shadaadinta funaanadooda ayaa Arteta la tusay ma jirin wax gool ay labada kooxood iska dhaliyeen inkastoo ay Arsenal cadaadis xooggan saartay Man United oo difaac ku jirtay qaab ciyaareed geesinimo leh ayay difaaca Man United u muujiyeen kadib markii uu Dalot qaatay casaanka oo ay yiraahdeen kulligu wada Dalot ayaanu dhahay rikoodhayaal ayaa lagu kala saaray labada kooxood waxa 5 iyo 3 5-3 ku badisay Man United oo gudubtay wareegga afraad ee FA Cup Serkesi waa ninka ka shanaad ku saxeexay war gool haye Bayandarow habeen baanu ku aragnay habeenkii wad lagu waxdaraysay Bayandarow oo naana gabal baas baa u dumay habeen madow yaa cadceedii fiisa dhacday yaa gacmo gajeelnimo rasmiya timi habeen isku muujinaysa yaa kulanka si gaar ah hadii isu dul taagno kaliya qaybta hore afar shoot oo ay tuurtay kooxda Arsenal waxba kuma yaadin saddex ayay tuurtay kooxda Man United laba ayay ku aadisay kubadaha bogoska lagu taabtay si Arsenal 14 jeer ay bogoska gudihiisa ay ku taabatay gool la kuma keenin halka laba jeer oo kaliya ay ku taabatay kooxda Man United 236 baas oo qaybta hore ay samaysay Arsenal 204 ayaa ka hirgalay 164 baas oo shadaadintu samaysay 127 ayaa ka hirgalay corner waa laba Arsenal heshay Man United waxa ma helin oo dhul daadsimeedka iyo beer dhigista iyo qurciideedka ayay ku sareysay oo saddex ayay lahaayeen faawlada kooxda Arsenal halka 12 ay ka ahayd shadaadinta 60% ku badaysashada Arsenal ayaa sareysay ku xaragoonaysi laakiin natiijo xumo ayay ka dhaxleen 40% Man United ayay ahayd guud ahaan 90 daqiiqo markay isdul taagnana 26 shoot ay Arsenal tuurtay 7 ayay ku aadisay 7 ay tuurtay Man United 4 ayay ku aadisay kubadaysashadu waa 70% kooxda Arsenal iyo 30% kooxda Man United 650 baas oo Arsenal sameysay ku xaragootay 557 baas ayaa halkii loogu talagalay ku diiraday isna 290 baas oo ay sameysay United 203 ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday taakaladu waa 16 oo markasta United dhinacaasi isqubista istaadista beerdhigista iyo qurciideedka way ku sareysay waa 10 faawul iyo 25 faawul koornayaashu waa 12 iyo 3 kooxda Man United fahamta calay shay kullu kalaam laakiin darbi adag ayaa loo dhistay haddana macaa 10 noqonay waxba naga sii jiidi maysaan ayaa lagu yiri nimankii iyaga ahaa waxyaabii la yaab kala ahaa ciyaartu hal iyo bar daqiiqadii 61 Dalot ayaa casaan qaatay 63 waa la barbareeyay 27 gool kulaad ayaa loo dhigay hadiyadaha kooxda Arsenal oo la yiri Victor Sarabagel hore fuulayaan 9 kale isla dhaafine oo digaad lugtiisi yaa sidii faracad in la miisayo ayuu Bayander u dhiibay Gabriel Magalhaes isagu waa ninka kaliya ee iminka shanta kooxood ee qoorweynta Chelsea Liverpool Spurs Man City Man United intaaba gool waa ugu shubay yaa inankaas hadii uu difaac misana hadda ma ila socotaa
xaqiiqooyinka kulankani laga diiwaan geliyay aan isdul taagno. Arsenal ayaa laga badiyay 5 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeysay ee FA Cup, halka Gunners laga saaray tartanka wareegga saddexaad 2 xilli ciyaareed oo xidhiidha. Abaya macmiil bay halkan ku yihiin. Man United ayaa Arsenal ka reebtay koobka FA Cup markii sagaalaad, waana in ka badan koox kale. Man United ayaa badisay 3 ka mid ah 4 rikoodh ee u dambeysay tartamada oo dhan, kadib markii ay badiyeen kaliya 1 ka mid ah 8 rikoodh ka hor intii u dhaxaysay Abriil 2009 iyo February 2022. sidoo kale kulankan waxyaabaha gaarka u ahaa aan isdul taagno iyaguna isha lagu hayay. kani waa kulankii 16aad ee kala duwan ee FA Cup marka laga reebo ka celiska lugaha labaad ee u dhaxeeya Arsenal iyo Man United, waana kulanka labaad ee ugu badnaa taariikhda tartanka kadib Everton iyo Liverpool oo 19 jeer. kulankan ayaa kii ugu horeeyay oo dhexmara kooxaha Arsenal iyo Man United wareegga saddexaad ee FA Cup-ka. waxay noqon doontaa kulankii 7aad ee kala duwan ee qaabka hadda loo qabto tartanka tan iyo 1925 iyo 26. Arsenal ayaa cirib tirtay koox haysata FA Cup-ka 6 jeer ee ugu dambeysay oo ay wajahdo, waxaana ugu dambeysay 2-0 oo ay ku garaacday Man City semifinalkii 2019. si kastaba ha ahaatee, Man United ayaa badisay 3 ka mid ah 4 kulan ee ugu dambeysay FA Cup oo ay wajahday Gunners, marka kan lagu darana waa kii afraad oo uu ku jiro kulankooda kaliya ay hore u kulmeen ee kuna kulmeen Emirates Stadium tartankan 3 bishii January 2019. Man United ayaa Arsenal ka cirib tirtay FA Cup in ka badan kooxaha kale taariikhda waa 8 jeer, halka Gunners ay ka reebtay Red Devils in ka badan koox kasta oo kale oo ah 7 jeer, laakiin iminka 9 ayaa la reebay Gunners. Arsenal ayaa laga saaray wareegga saddexaad ee FA Cup 2 ka mid ah 3 xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay, iyagoo ku dhacay caqabadan 1 kulan oo ka mid ah 25kii olole ee hore. waxay ugu dambeyn ku soo baxeen wareegga saddexaad xilli ciyaareed xidhiidha 1994 iyo 95, waqtigaana Millwall ayay la ciyaareen, iyo 95 iyo 96 waa Sheffield United iyana la ciyaareen, laakiin madaaficdii waa laga adeegtay, haragooda ayaa lagu tukaday. mar kale kulankani wuxuuna xusuusiyay 2005 oo kooxahani sidani oo kale ay isu hurdiyeen, halkani oo kale ay isugu hurdiyeen oo dhegta dhiigga la isu daray. markaana nimankii Arsenal ahaa 10 nin bay haragooda ku tukan kari waayeen, iyagoo maraqooda la cabay, xataa rikoodha hadiyada way heleen. waa kuwa tasarifan kari waayay, maxilligii madfuuc qoyay baa la gaadhay. qulow barafta iyo baraf kula qoyaan waa sababa, waa nimanka remote-kii baa laga qaatay. dee suurtagal bahalkii isaga waa qoy madfici isaga waa qoy. habeen ka daran Tottenham Hotspur ayaa shadaadiinul ahmar ya United ya maca faaniskooda ninkii Amorim ahaa inuu wax soo wato wayna ogeyn. 10 nin leh lagu ciqaabo Arsenal da haysay 3 sano ugu dambeysay, nimankii hadda hankooda horyaalka FA Cup-kiina waa taa laga soo dacareeyay, haragooda lagu tukaday, maryaha laga calaashaday, waa la maraq saaray. shabaab mutacaafin yaa la oran jiray weeye waxood muuqa waanu ka qara weynahay, balse marka gudaha la soo galo maalin basi ayaa naloo muudsadaa. xubintu waa kariska intaas kuma KL Classic-da oo karkarsanina daawahay soo saaran tahay. anigu waxaan ahay Tirike, halkan haddaad hore nooga weyda barta YouTube-ka nagala soco. inta ka horeysa xubintan midda xigta sida ayaa maana Allah.